jimco wanaagsan walaalayaal daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan Maracadda Show waa 26ka bisha June sanadka 2026 maalin jimco ah fadlan ha ilmaamin maanta oo kale inaad akhriso suuratul Kaafi iyo Quraanka Kariimka guud ahaan inta aad awoodo inaad akhriso wehelna ka dhiga mar walba aad baad u mahadsan tahay qodobada qaybtan aan kugula wadaagi doono waxaa kamid ah Israel waxay doonaysaa markan inay dagaal adag ay la gasho dawladda Qatar maxay dawladda Qatar ay kaga cabanayaan diblomaasiyana yaa guuleystay falanqayn iyo warbixin dheer oo arrintaasi ku saabsan waxa raaci doona Mareykanka maxaa ku qasbay in uu yiraahdo waxaan ka guurayaa laba saldhig oo aan ku leeyahay dalalka Carabta halkee ayuu u guurayaa waana maxay mid kamid ah saldhigyada qaliijka ku yaala sababtoo u doortay in dayactir oo kaliya lagu sameeyo laba saldhigna uu ka guuro falanqayntaasi iyo warbixin kale oo ku saabsan Zelensky oo 40 maalin u qabtay madaxweynaha dawladda Ruushka 40ka maalin muxuu madaxweynaha Zelensky doonayaa inuu sameeyo sideena loo qaabeeyay in weerar culus oo Putin uusan ka soo kaban karin lagu qaado gudaha dalka Ruushka qodobo kale ayaa raaci doona oo gobolka iyo caalamkaba ku saabsan insha Allah soo dhawaada saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo Maracadda Show barnaamijka falanqayn wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan waxaan ku hormarayaa muuqaalkan waa mid kamid ah kuwa ugu saameynta badan ee dalka Sacuudiga qaar kamid ah dadka dhagxaanta iyo waxyaabaha ka shaqeeya ee dalka Sacuudiga ayaa waxay ka shaqeynayeen mid kamid ah deegaanada dalkaasi gaar ahaan deegaanada miyiga ah dhagax aad u weyn ayuu markaa mid kamid ah dadkii qaybta sare saarnaa ee baldoozarada ku shaqeynayay uu soo dhaqaajiyay kumana uusan xisaabtamin dhagaxaasi inuu saameyn ku yeelan doono saaxiibadii oo isaga ka hooseeyay wuxuu ku fikrayay qaybaha dhexe ay ugu yaraan dhagaxaas ku hakan doonaa sida muuqaalka aad ka arkaysaan laakiin ugu dambeyntii dhagaxii qaybta hoose ayuu soo gaaray waxaana uu ku dhacay mid kamid ah gawaarida dhagxaantii iyo qaadistooda ka shaqeynayay laakiin alla mahadiyay darawalkii gaarigaasi waday iyo saaxiibkii oo caawinaya waxyeelama aysan gaarin iyagoo aanan maleysanaynin dhagaxa inta leeg ee ku soo socday sababta aan u soo qaatay muuqaalkan waxay tahay waxaad ogaataa qadarta goorta aad dhimanayso iyo goobta aad ku dhimanaysaba inay ku qoran tahay laakiin dadaal ayaa laga doonayaa dadaalkaas oo Allah subhanahu wa ta'ala aad ku xiranta waxyaabaha qaar aan lagu hoosgelinin waalidka aad baari aad u noqotid maxaa yeelay aakhiro iyo adduunyo way kala badan yihiin yay adduunyada oo kaliya in nasirin oo aanan si weyn ugu mashquulin Allah subhanahu wa ta'ala gafkeena iyo geerideena ma kulmiyo dambigeena Allah cafiyo dadkeenana Allah isku soo duwo aan markaan eegno wararka ciyaaraha kuwa loogu hadalhaynta badan yahay xulalka Iran iyo sidoo kale Masar ayaa si weyn uga soo horjeeda qorshe la doonayo magaalada Seattle oo dalka Mareykanka kulankooda oo ka dhici doona in yani calaamada ama astaanta dadka ma aragtay isku jinsi ee soo galmooda ciyaartooda lagu xuso iyo waxyaabaha la midka ah inkastoo ciyaaryahanada aan lagu qasbaynin astaamahaas haddana waxa lagu waramayaa dadka in loo ogolaaday taageerayaasha qaarkood inay astaamaha qaansan roobaadka iyo waxyaabaha la midka oo loo nisbeeyo LGBT-ga inay yani qaadan karayaan taageerayaal Iiraaniyiin iyo kuwa Masaari ah miya qaadan doona sheekadu ma ahane waxa laga baqayaa xitaa dad Amerikaana inay arrintaasi darteed ay u tagaan ciyaaraha maxaa yeelay xiriirada kubadda cagta ee Iran iyo sidoo kale dawladda Masar way diideen in xitaa yani kulankaas xitaa waxay yiraahdeen shaki weyn ayaan gelinaynaa waana warka loogu hadalhaynta badan yahay FIFA go'aan ma aysan qaadan waxay dhaheen annaga qorshaheena ma ahan inaan ciyaaryahanada waxyaabaha ku qasabno laakiin magaalada Seattle oo lagu qabanayo kulankiina ayaaba yani marka maalintan ama isla maalintaasi loo ogolaaday inay barnaamijkaasi waxyaabaha la midka ah ay qabtaan bishii December sanadkii ina dhaafay 2025 ayaana kulankooda la go'aamiyay inuu magaaladaasi uu ka dhacayo isla maalintaasina waa lagu aaday marka buuq weyn ayaa arrintaasi ka jira ilaa iminkana la isku fahmin wax walba oo ka soo kordhana waan arki doonaa insha Allah ta'ala markaan aan eegno Mareykanka wuxuu ka fikirayaa in qaar kamid ah saldhigyadiisa ku yaala qaliijka ciidamada ku sugan la dhimo ciidankaasina loo raro gudaha Israel iyo deegaanada galbeedka kaga beegan boqortooyada Sacuudiga warbixintan oo ay warbaahinta Wall Street Journal iyo warbaahinta kale ee gobolka ay qorayaan ayaan eegi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay ee ka soo kordhay iyo arrimahan waxyaabaha keenay Mareykanka wuxuu doonayaa dib u eegis inuu ku sameeyo saldhigyadiisa uu ku leeyahay bariga dhexe kuwii waxyeelada ay soo gaartay qaarkood waa la dayactiri doonaa qaarkoodna saameyntiisa ama joogitaankiisa ayaa gabi ahaanba la yareynaya tusaale ahaan Bahrain Kuwait iyo sidoo kale dawladda Sacuudiga
dalka Bahrain waxaa lagu waramayaa dib u habeen weyn in la doonayo in lagu sameeyo waxyeelada goobii ay gaartay intii dagaalka uu socday waxaana soo baxaya Mareykanka inuu mar kale uu ka fakarayo suuragalnimada mar kale hadii dagaal uu dhaco in saldhigyadan ay noqon karayaan bartilmaameedyada ugu horeeya ee dawladda Iran casharna laga bartay wixii dhacay intii dagaalkii ugu dambeeyay uu socday maxaa dhanka Bahrain laga sheegay warbixinta Wall Street Journal waxaa lagu sheegay in sawirada dayax gacmeedyada ee la qaaday ay muujinayaan burbur weyn oo soo gaaray xarumo muhiim ah oo la islaha lama gaari karayo iyo xarumihii raadarada digniinta hore bixin jiray ee gudaha dalkaasi Bahrain Mareykankan waxa uu qirtay in saldhig muhiim ah oo dhanka badda ah uu ku leeyahay dalkaasi Bahrain sida daraadeed Washington waxay ka fakaraysaa saldhigaasi dib u dayactir in lagu sameeyo xogaana waxa la yiri hadda laguma degdegayo maadaama saldhiga muhiim inoo yahay in ciidankana la yareeyo saldhigaasina laga guuro laakiin Kuwait iyo maxaa laga sheegay dalka Sacuudiga Mareykanka waxa lagu waramayaa inuu ka fiirsanayo inuu yareeyo marka hore tirada ciidamada Ameerikaanka ah ee ku sugan labadani dawladood maadaama ay u dhow yihiin dhanka iyo dawladda Iran ayna sahlan tahay in la beegsado saldhigyada halkaas ay ku leeyihiin Mareykanka marka waxa la sheegay inuu doonayo Sacuudiga oo kala marka la eego dhanka galbeedka ee Sacuudiga inuu u wareego halkaas inuu saldhigyo uu ka sameesto hadii yaani geography ahaan ay anfici weysana wuxuu doonayaa dhanka iyo Israel inuu u wareego maxaa galbeedka laga doonayaa ujeedadu waxay tahay in laga fogaado diyaaradaha iyo gantaalada ee dawladda Iran inay beegsadaan saldhigyada Mareykanka halkaas uu ku leeyahay maadaama dhaqaale badan la geliyo dawladaha qaliijka inta ugu badan sababta uu boqortooyada Sacuudiga galbeedkeeda u dooranayna waxay tahay inuu aaminsan yahay in halkaasi aad uga fog tahay ee dawladda Iran ayna sahlaneen in la gaaro yaani diyaaradaha droneska gaar ahaan in halkaasi ay gaaraan maadaama Iran inta ugu badan ay diyaaradaha drones ay adeegsato waa maxay marka sababta Israel ay muhiimada ay ugu noqotay waqti xaadirkan Israel waxa loo arkaa goob galbeedka ka sii xigta dalalka qaliijka kana fog dalka Iran inkastoo diyaaradihii droonka iyo gantaaladii dawladda Iran ba halkaas ay gaareen hadii marka qaar kamid ah howlgallada Mareykanka halkaas loo raro oo saldhigyada Mareykanka iyo ciidankiisa halkaas la geeyo Washington waxay aaminsan tahay inay ka difaaci karto diyaaradaha drone ee Iran ka imaanaya gaar ahaan kuwa masaafada dheer soo jiidaya laakiin arintan waxa lagu waramayaa inay yeelan karto culays siyaasadeed sababtoo ah waxa si xoogaysanaya xiriirka Mareykanka iyo Israel ee dhanka militariga iyadoo maalmihii ugu dambeeyay warar kala duwan ay soo baxayeen oo ay doonayeen yaani Israel inay isku tashato sida Ra'iisul Wasaare Netanyahu iyo mas'uuliyiin kale ay sheegeen ujeedaduna waxay tahay marka Mareykanka inuu yareeyo qasaaraha dhanka Iran kaga imaan karaya inkastoo dhaqaale badan arintan ay ku baxayso sidoo kale sheekada inta kuma eka waa fariin ku socota dhanka iyo dawladda Iran sababtoo ah dalalka qaliijka waxa loo sheegaa Mareykanka wali inuu joogo dhanka gobolka balse qaabka joogitaanka ayaa u muuqanaya inuu isbedelayo taasoo keeni karta walaac sababtoo ah Kuwait Bahrain iyo Sacuudiga waxay muddo dheer ay ku tiirsanayeen saldhigyada Mareykanka ee dhulkooda laakiin dhinaca kale waxa loo arkaa faa'iido weyn oo qaar kamid ah dawladaha qaliijka ay heli karayaan maadaama ay ka bixi karayaan ku tiirsanaantii Mareykanka ay ku tiirsanayeen arintan saameyn weyn ayay yeelan kartaa oo hadii la hirgeliyo waxay wax ka bedeli doontaa qariiradii joogitaanka Mareykanka ee bariga dhexe qaliijkana waxa uu ugu yaraan uu ka bixi karaya inuu noqdo xarunta ugu weyn ee ciidamada Mareykanka ay ku sugan yihiin gobolka halka galbeedka Sacuudiga iyo Israel ay noqon karayaan goobo muhiim u ah danaha Mareykanka marka arintan kaliya kuma koobna dayactir saldhigyadiisa Mareykanka uu doonayo inuu ku sameeyo strategically wuxuu doonayaa inuu ka fakaro meel Iran ka fog markan in la dago oo dib u qaabeyn weyn ayaa lagu qasban yahay in la sameeyo iyada oo la tixraacayo casharkii laga bartay dagaalkii ugu dambeeyay marka Iran ayaa ku qasabtay Mareykanka inuu qaar kamid ah dalalka qaliijka ka guuro saldhigyadiisii qaarkoodna ciidankii iyo joogitaankii la yareeyo taasina waxa isweydiin mudan ma waxay ku timid hadaladii kala duwanaa ee dawladda Iran ee u jeedinaysay dawladaha qaliijka ee ahaa in Mareykanka saldhigyadooda ay ugu yaraan yaani dhibaato un mooye faa'iido aysan ku qabin gobolkana amniga ay iyaga ay xaqiijin karayaan hadii si wada jira la isku kaashado wax walba oo ka soo kordho qodobkan barnaamijyadeena kale ayaan kugu wadaagayaa insha Allah madaxweynaha dawladda Ukraine Volodymyr Zelensky wuxuu hanjabaadii ugu adkeed u diray madaxweyne Vladimir Putin oo wuxuu yiri muddo 40 maalin oo hadda soo socota yaani Ruushka wuxuu la kulmi doonaa weerar adag waana ina baran doonaa Zelensky wuxuu sheegay inuu beegsan doono halbowlaha dalka Ruushka yaani xarumaha dhaqaalaha ee dalka Ruushka madaxweyne Zelensky wuxuu sheegay 40 maalin ee soo socota in diyaarada drones oo aad u tiro badan in la adeegsan doono iyada oo la beegsanayo xarumo muhiim ah ujeedada ka dambeysana ay tahay cadaadis military iyo sidoo kale mid dhaqaale oo Ruushka uu doonayo in la saaro aan eegno qorshaha ka dambeeya
Ukraine ma doonayso oo kaliya inay ay burburiso saldhigyada ciidamada dowladda Ruushka waxay hadda ka fakarayaan inay beegsadaan ilaha dhaqaalaha ee dowladda Ruushka si gaar ahaaneed warshadaha shidaalka sifeeya kaydka shidaal ee dowladda Ruushka dhuumaha saliidda qaada kaabayaasha tamarta iyo sidoo kale goobaha ay saadka u maraan ciidamada dowladdaasi Ruushka maxaa loo bartilmaameysanayaa goobaha shidaalka waa su'aasha la isweydiin karo ujeedada ugu dambaysa waxay tahay in Ukraine ay aaminsan tahay lacagta tirada badan ee iyaga lagu soo weerarayo howlgallada Ruushkana uu ku sii wado in halkaasi laga helo sida daraadeedna dib loogu isticmaalo soo saaridda hubka mushaarka ciidamada soo iibinta rasaasta iyo gantaalada Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha laga soo iibiyo iyo dayactirka lagu sameeyo gaadiidka iyo waxyeelada ciidamada dowladda Ruushka soo gaartay inta dagaalka uu socdo sida daraadeed waxay yiraahdeen marka waa inaan taasna aan cuuriyaha bartilmaameedyada ugu muhiimsan marka waa warshadaha shidaalka sifeeya iyo kaydka iyo saldhigyada tamarta iyo xarumaha si gaar ahaaneed Crimea iyo gobolka lagu magacaabo Belgorod iyo Bryanski iyo Krasnodar waa goobaha ugu muhiimsan ee ay doonayaan reer Ukraine inay beegsadaan waa maxay sababta marka dhamaantood loo beegsanayo Crimea oo kale marka aan ku hormarno waxay aaminsan yihiin in halkaas ay tahay xarunta ciidamada dowladda Ruushka xarunta hubka lagu kaydiyo sahayda ciidanka halka la soo marsiyo shidaalka halka la soo marsiyo ciidanka furmaha dagaalka loo dirana goobta ay ka soo gudbaan waxay aaminsan yihiin Crimea inay tahay sida daraadeed gobolada kale waxay aaminsan yihiin inay yihiin warshadaha halka ay ku yaalaan oo dhaqaalaha tirada badan Ruushka uu ka soo saaro sida daraadeed wuxuu leeyahay madaxweyne Zelensky 40 maalin ee hadda soo socota Ruushka waa loo yaabaa waan baabi'in doonaa tan waxay qasabtay in dowladda Ruushka qaar ka mid ah nidaam difaaciyeedii ugu muhiimsan in laga soo saaro gobollo dhowr ah oo dalkaas Ruushka ku yaala hareeraha magaalada Moscow la keeno si loo difaaco xarumaha shidaalka iyo xarumaha ugu muhiimsan xarumaha ciidanka talisyada iyo xarunta madaxtooyada sidaas oo kale waxa aad loo adkeeyay amniga magaalada lagu magacaabo Stalingrad iyo Belgorod iyo magaalooyin kaleba todobaadyadii ugu dambeeyay marka Ruushka iyo Ukraine diyaarado daroonisa ayay isaga caanamaalayeen hubkii cuslaa ee dhaqaalaha tirada badan ku baxayba daroonisa ayaa bedelay toddobaadkii horena Ukraine waxay sheegeen 500,000 diyaarado daroonisa in ka badan 450,000 oo diyaarado daroonisa ay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen diyaaradahaasina ay adeegsan doonaan waana kalsoonida hadalka Zelensky sababta uu qabsan uu leeyahay 40 maalin ee soo socda Ruushka wuxuu la kulmi doonaa weerarada ugu adkaa waan arki doonaa macluumaadkan waxyaabaha ka soo kordha iyo hanjabaadan oo madaxweyne Zelensky warbaahinta uu soo mariyay ujeedada ka dambeysaba insha Allah haddii aad halkan soo gaartay like-san muuqaalka la wadaag saaxiibadaada wad mahadsan tahay markaana waxaan eegaynaa macluumaadka ku saabsan dowladda Qatar intaanan eegin aan ku weydiiyay ma akhrisay wili Quraanka Kariimka si gaar ahaan Jimco maadaama ay tahay suuratul Kahfi muxuu ahaa qodobkii ugu horeeyay ee barnaamijkeena qaybta saragtidaada ku reeb wad mahadsan tahay Israel waxay si weyn kaga walaacsan tahay dagaal ay sheegeen dowladda Qatar inay kala kulmeen intii dagaalka ugu dambeeyay uu socday laakiin hadda waxay doonayaan dagaal culus inay ku qaadaan dhanka iyo dowladda Qatar muxuu dagaalkaasi ku saleysan yahay maxay Qatar kaga careysan yihiin waana maxay waxyaabaha ay ku tilmaameen laba wajiilanimada ay Qatar ay ku dhaqantay aan kula wadaago warbixintan oo wargeyska iyo dacwad axranood lagu qoray Israa'iilna laga leeyahay waa maqaal aad u dheer laakiin wuxuu ku iftiiminayaa sida ay Israa'iiliyiinta ay doonayaan markan inay weerar ay ku qaadaan dhanka Qatar waxyaabaha Qatar ay ku guuleysatay halka ay kaga awood badisay dhanka iyo Israa'iil iyo waxyaabaha iyaga ay doonayaan inay sameeyaan warbixintu waxay leedahay xiriirka qarsoodiga ee Israa'iil iyo dowladda Qatar markii hore waxa uu u ekaa sida xaalad taxadar ah balse ugu dambeyntii wuxuu isku bedelay qatar istiraatiiji ah warbixintan kula wadaagayo ogow waxa lagu qoray wargeyska iyo dacwad axranood wargeyskana waxa laga leeyahay Israa'iil waliba waxa qoray qoraal lagu magacaabo Ariel Admoni oo Israa'iili ah marka sida aan ku leeyahay waxaan fahmayaa ama aan filayaa inaad wax badan fahmi doontid qoraagu wuxuu ku doodayaa in dowladda Qatar si fagaara ay uga hortimaado mar walba Israa'iil laakiin si qarsoodi ula gasho heshiisyo is-afgarada taas oo xukuumadda Dooxa siisay awood ay ku noqoto dhexdhexaadiye aan laga maarmin maxaa Qatar lagu eedeeyay Qatar waxa lagu eedeeyay inay laba waji ay isticmaasho fagaaraha marka la joogo inay taageerto mawaaqifta ka dhanka Israa'iil warbaahinteedana ay faafiso hadallo iyo falanqeyn dhaawacaya Israa'iiliyiinta warbaahinta laga qeylinayana waa warbaahinta Al Jazeera iyo sidoo kale Al Arabi waa labo midna waxa laga leeyahay Al Arabiya ayaa la yiraahdaa oo Sacuudiga ayaa laga leeyahay laakiin Al Arabi waxa laga leeyahay Qatar laakiin dhacdooyinka qarsoon ayuu qoraagu leeyahay waxa ay la yeelataa Israa'iil iyo Mareykanka xiriir hoose ganacsi mid amni iyo mid diblomaasiyadeed
Israel waxay dooratay inay si buuxda aysan ula dagaalamin Qatar ayuu leeyahay qoraaga sababtoo ah Dooxa waxay saameyn weyn ay ku leedahay dhanka Washington iyo dalalka qaaradda Yurub sidaa daraadeed Israel waxay isku dayday inay khilaaf ay maamusho oo ay Qatar iyo sidoo kale dowladaha Mareykanka iyo Khaliijka iyo dowladaha kale ee Yurub aan ilaahay ka dhex shaqeyso qoraaga waxa kale uu leeyahay qaladku wuxuu ahaa in Israel ay u dulqaadatay weerarada dhanka fagaaraha ee dowladda Qatar oo dhanka warbaahinta Al Jazeera iyo waxyaabaha la midka ah oo waad ogeydeen dagaalkii magaalada Gaza ka dhacay iyo sida telefishinka Al Jazeera uu baahinayay laakiin buu yiri dulqaadkaasi wuxuu Qatar siiyay buu yiri sharciyad iyo awood dheeraada waxaana xukuumadda Dooxa ay baratay in hadal adag lagu muujiyo banaanka halka gudaha heshiis hoose lagu gaaro warbixintu waxay tusaale u soo qaadatay dhexdhexaadintii dowladda Qatar ee u dhaxaysay Iran iyo Mareykanka waxaana uu leeyahay qoraaga Qatar waxay fagaar ahaan ay u muuqatay inay u janjeerto dhanka iyo dowladda Iran balse isla waqtigaasi waxay heshiisyo hoose ila lahayd Mareykanka taasoo u sahashay buu yiri in ay dhexdhexaadinta qayb ka noqoto tanaasulaad badanna Mareykanka uu sameeyo ugu dambeyntii nuxurka markaan ka eegno maadaama warbixintu ay aad u dheer tahay wuxuu leeyahay Israel waa inay ka shaqeysaa oo ay dagaal diblomaasiyadeed iyo mid adag bay la gashaa ee dhanka iyo dowladda Qatar dhanka diblomaasiyadda marka la eego wuxuu yiri Dooxa waxay saameyn ay ku leedahay Mareykanka taa beddelkeeda waxa aan ku talinayaa buu yiri in Israel ay bartilmaameysato danaha ganacsiga iyo mashaariicda dowladda Qatar ee Mareykanka iyo Yurub lagana joojiyo in dowladda Qatar ay maalgelin ay ku sameyso wadamada qaaradda Yurub iyo Mareykanka waxa kale oo qoraagu uu leeyahay waa in la joojiyaa xarumaha waxbarashada la fashiliyaa heshiisyada dhanka ganacsiga hakinta ee shirarka dowladda Qatar ee danta u ah sida uu qabo talaabooyinkaasi wuxuu leeyahay Qatar waxay noqonayaan kuwa xanuun badan oo saameyn ku yeesha balse aanan keeni doonin isku dhac weyn oo Washington ka xanaajinaya marka wuxuu leeyahay qoraaga warbixintaani qore maadaama Qatar ay annaga warbaahintii iyo ay noo adeegsatay waa inaan annagana joojinaa oo aan ka kansalnaa mashaariicda horumarineed ee wadamo badan oo qaaradda Yurub ay ka sameynayso oo dhaqaale badan ka soo galaya dowladda Qatar iyo kuwa Mareykanka ay ka sameynayso heshiisyada ganacsiga yani waa inaan ololo noocaas aan sameynaa buu yiri fariintan oo aad moodo marka inay tahay fariin si toos ah loogu dirayo dhanka iyo dowladda Qatar sidoo kalena lagu leeyahay waan idin la soconaa dhibaatada aad nagu haysaan iyo yani dusha sare waxa ka socday hoos sida noola dhaqmaysaan iyo fariin diblomaasiyadeed oo guud ahaan ku socota Mareykanka iyo dowladaha kale aragtidaada qaybta hoose ku reeb like-san muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay ugu dambeyntii ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iran ayaa waxa ay digniin u dirayaan Israel waxaana ay ka dalbadeen inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay kaga baxaan gudaha Lubnaan Ismaaciil Qaani oo taliyaha ciidanka ilaalada kacaanka ee Quds Force loo yaqaano ayaa qoraal u soo saaray wuxuu ku yiri waa inay Israel ay ka baxdaa gudaha Lubnaan halka Israel ay sheegtay inaysan Lubnaan ka bixi doonin sidoo kalena waxa soo baxay shalay gelinkii dambe in Lubnaan duqeymo laga furiyay oo ilaa 8 ruux ay dhaawacyo soo gaareen oo reer Lubnaan wax walba arrimahan ka soo kordha waan kula wadaagi doonaa insha Allah like sar muuqaalka la wadaag saaxiibadaada waad mahadsan tahay